qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood oo maanta kormeeray goobta qashinka magaalada la geeyo ayaa sheegay in horay dawladda hoose iga dhigatirtay baaq ay u soo jeediyeen shacabka magaalada Laascaanood taasoo ay ka cabanayaan nadaafad darrada uu sababi karo qashinkan oo ku fiday goobo badan. sidoo kale xildhibaanadan ayaa saaka kormeeray gaadiidka dawladda hoose ee degmada Laascaanood oo ku xumaaday gudaha xarunta dawladda hoose ee Laascaanood waxayna sheegeen in magaalada Laascaanood maanta ay u baahan tahay samata bixin. xildhibaanadan oo horay mooshin uga keenay maayirka degmada Laascaanood ayaa sheegay in dawladda hoose ee degmada Laascaanood ay u baahan tahay samata bixin waxayna booqdeen buundooyin ay jareen roobabkii ka da'ay magaalada Laascaanood kuwaasoo dayac badani ka muuqdo waxayna xukuumadda ugu baaqeen in si degdeg ah loo soo gaaro oo dhoodna loo soo diro. la dhigay god buu qashin ku lahaa godkii markuu buuxsamay oo la gubi waayay oo laga shaqayn waayay maayarka degmada haysta wuxuu u soo raray barta aynu taaganahay biyihii way ka shubmi jireen oo waxay u rogmi jireen barkada dhuya xunsho bulshada Laascaanoodna barkadaasay ka cabtaa. halkani waa madaxtooyadii qashinkii uu soconayaayo waxa weeyaan dhul daaqsimeedkii iyo meel walba saas ugu socdaa. waxa Laascaanood maanta ay maraysaa meel khatar ah xagga caafimaadka. qashinka uu keenay maayirku iyadoo ka soo raray goobtii hore qashinka halkan ay khatarteeda leedahay sidii xildhibaankii hore uga hadlay. waxaan kaloo ka hadlayaa mooshinka aanu keenay wuxuu mid sharciya markaan waxyaalaha maanta aanu dhex taagan iyo wixii hore laga hadlay la eego waana mid goluhu xor yahay isbedelka iyo la isku bedelo oo kala fadhi lagu kala baxo. waxaan u sababsanaynaa waxa ka dhacaya halka qashinka halka yaalla iyo caafimaad darrada magaalada. waxaan u sheegayaa anigu maayirka horaan ahaa sifa sharciya lagu dhiibay sifa sharciya laga qaaday isbedelkuna waa mid sharciya isagana waa la bedelayaa sharci baa lagu doortay sharcina waa lagu bedelayaa. waana arinta golaha loo sameeyay in loo kala baxo kooran waan u madax bannaan yihiin. intaa wixii dheer waxa weeye dawlad baynu leenahay sharciga inoo hayso oo wixii aanu khalado saxaysa. intaa markaa gudbo golaha deegaanka dhinac kasta joogan waxaan ugu baaqayaa nabadgelyada inay ka shaqeeyaan ay sharciga baalmarin oo ay ilaaliyaan wixii ka baxsan sharciga aynu ku dhaqmayno. intaa markaan ka gudbo waxaad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu la dagaalamay musuqmaasuqi dalka Soomaaliland ka soo afjaray laakiin marka laga reebo Laascaanood aad muddo degmadeena ku soo ururay maanta musuqmaasuqu ka jira uu baahsan yahay. maayarka Laascaanood 2 sano oo buuraabi joogay wax uu qabtay ma jirto waxa uu ku tuntay wixii ragii ka horeeyay ay qabteen oo dhan. maantana dhibaatada ugu badan ee dhulka ka jirta waa nabadgelyo xumo xagga dhulka soo socota. intii uu joogay 3 dil baa ka dhacay oo shacabka iyo blaiskaba ku dhacay oo sabab uu yahay isagu xagga dhulka ka timi. anu waxaan ahay horta marka koowaad xogayihii waaxda maaliyadda golaha deegaanka. musuqmaasuq aad iyo aad baahsan ee ka jira dawladda hoose dhammaantood waa wax tajbalo la taaban karo oo aan cadeymahooda hayo. tala iyo tusmo markii aan kala qustayna faraan ka qaado qofkan waxba ka dhageysaneen weliga ku akhriimaysa abuuriya waana waxa la yidhi abuurta horeysay. dawladda hoose ee Laascaanood maanta way ka xun tahay xaaladda ay ku jirto markii bilaa golaha deegaanka ahayd. gaadiidka dawladda hoose way wada fadhiyaan hal iskaroga ka shaqeeya halka iskarogo maalintiina qashinka soo gurtaa habeenkiina sayladii ka soo qaadaa ariga hilib ka soo qaadaa. waxa weeyaan dadku waxay ku jiraan shacabka xaalad halis ah oo aan la eegan karaynin. cagafyadii way dayacan yihiin oo dayac bay dawladda hoose u dhexyaalin gawaadhidii way wada fadhiyaan tamartii iyo awoodii iyo caqliga inta laga shaqaysiyo gaadiidkeena waxaan ku hagaajin lahaa ummadda loogu adeeg lahaa meesha ma taalo. musuqmaasuq 90% ayaa ka jira Laascaanood. musuqmaasuqkii ugu weynaa garan maayo anigu degmada Soomaaliland oo Laascaanood dayac iyo musuqmaasuq ka jira aanu ka jirin. waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in xaaladda Laascaanood bilicda magaalada anu golaha deegaan hadaan nahay bilicda magaalada naloo doorto iyo nabadgelyada bilicdii magaalada iyo nabadgelyadii midna farnooguma jiraan oo kuma hayno maayarkaana ku takrifalay. waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne iyo wasiirka arrimaha gudaha Laascaanood soo gali oo dhan
dad waxa nala arka soo gali wafti baa jooga waanu soo kaxayn doonaa waan tusi doonaa waxaanu aragnay wixii aan cadayn lahayn aan cadayntooda haynin naga reeban midda kale waxaan ugu baaqayaa shacabka degmada Laascaanood iyo golaha deegaanka in waftida uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed lagala shaqeeyo nabadgelyada hormuudka nabadgelyada waxaan ku la horkaco qodobka kale aan ku noqonayaa waxay tahay anagu mooshin baan maayarka keenay sifa sharci aanu marnay maayarka waan u geynay warqadiisii uu haystay muddo loogu talagalay waanu ka qaadnay waxaan u geynay warqadu xaq u lahaa gudoomiyaha gobolku wax kala fadhiya ma uusan qaban laakiin alxamdulillah maanta mar hadii wasiirka arrimaha gudaha ee aan hoos tagnay uu jooga Laascaanood wasiir Maxamed Kaahin waxaan leeyahay waxaad indhahaaga ku aragto ayuun baa inoo dhaxeeya kala fadhigana noo qabo golahana fariisi shacabka degmada Laascaanood nabadda kala shaqeeya Mawlid Ali Star TV Laascaanood